الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه markay naftu ka sii baxaysay ugu dambaysayna waa wuxuu dardaarmay. yani qofku marka uu dhimanayo ee uu og yahay inuu dunida tan ka tagayo ee uu isleeyay dadkii uu ka naxayay u dardaaran waxa uu dardaarmaa waxa ugu weyn ee uu isleeyay dadka uga sii tag. nabi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wasiyaadkiisii ugu dambeeyey bale naftu markay ka sii bixi doonto wasiyadu lahaa الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. sida xadiidka abi daawuud iyo keyrkiiba sheegayaan sheekh albani saxiixa ku tilmaamaya الصلاة الصلاة waa wuxuu nebigu ku dardaarmay ugu sii dambeeyey. salaadda waa shaygaasi mansiladeeda aynu wada naqaano nusuus badan iyo axaadiis aad u tiro badani ku soo aroortay ilaa xad culimmadu ay tilmaamaan arkaanta kale dhulkaa lagu waajibiye meel bini aadam gaadho halkii ugu sarraysay markuu nebi moxamed marayey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh in la soo faray leylat lmicraaj. haddaynu dib ugu noqonno qur'aanka makiga ah waxaynu dareemaynaa inay salaadu ka mid ahayd waxyaabihii tawxiidka la socday. waxaynu dareemaynaa inay ka mid ahayd waxyaabihii nebiyadii hore ilaahay subxaana wa tacaala uu soo faray. sideedaba arkaantan shanta ahi haddaad nusuusta qur-aankaa dib ugu noqoto waxay ka mid yihiin diimihii samada ka soo degay waxyaabaha ay wadaagaan intooda badani. hadday xajtay, hadday soontay, hadday salaadtay, hadday zake tahay, kayfiyaadkeedu baa kala gedisnaa. mansilada ay ka taagantahay waxaa kaaga filan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka warramayaa abulambiyaai ibraahiima calayhi salaam. nebi ibraahim oo ilaahay baryaya oo maxay ka baryaya rabbi ijcalnii muqiima الصalaaة wa min duriyati rabbana wataqabal ducaa. nebi ilaahay baryaya subxaana wa tacaala oo gacmaa kor u taagaya oo waxa uu ilaahay weydiisanaya ay tahay inuu alle ka yeelo mid salaada ooga. ahmiyadeeda waxay tilmaamaysaa inay hidaaya gaara u baahantahay salaada oogiddeedu, hidaayo gaara inay u baahan tahay. sidaa daraaddeed baa abulambiyaa intuu ilaahay baryay subxaana wa tacaala ayuu ilaahay wuxuu weydiisanayaa inuu alle ka yeelo mid salaada ooga. haddaynu qur-aanka akhrina waxaynu arkaynaa ambiyadii hore nebi ciise oo leh qaala innii cabdullah aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya wajacalanii mubaarakan aynamaa kunt waawsaanii biالصalaati waالzakaati maa dumtu xaya. nebiyullaahi ciisa oo le ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ii dardaarmay amase i amray i faray salaad iyo zako inta aan noolay. waxaynu qur-aanka ka dareemaynaa iyadoo nebi muuse markii tawxiidka loo dhiibay salaadana loo dhiibay. walidalik baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa saacaadkii koowaad ee waxyiba nebi muuse ku soo dego waxaa lagu yidhi waana اkhtartuka faاstamic lima yuuxaa inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana faacbudnii waaqimi الصalaaةa lidikri. waxaynu dareemi karnaa nebi haaruun sidoo kale an tabawa'a liqawmikumaa bimisra buyuuta wajcaluu buyuutakum qibla waaqiimu الصalaaة. waxaynu dareemaynaa iyadoo ilaahay subxaanaه wa tacaala uu inooga warramayo nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo loo tilmaamayo walaa tamudanna caynayka ilaa maa matacna. ilaahay uu tilmaamayo waxaan bidhbidhkan adduunya zahrat alxayaati اdunya inaan waxba isku mashquulin oo indhaha u taagin. maxay samee baa lagu yidhi wa'mur ahlaka biالصalaaةi wastabir calayha laa nas'aluka risqa naxnu narsuquk waalcaaqibaةu litaqwa. idan qur-aanka markaynu u fiirsanno makiga ah qur-aanka aan akhriyay waa qur-aan makiya. qur-aankaasi makigaa markaynu u fiirsanno ilaahay subxaanaه wa tacaala iyadoo maka la joogo ayuu muslimiinta salaad uga warramayay.
loo warramaya ambiyadii hore iyo salaaddu halkay ka taagantay loo warramaya nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi iyo wixii alla faray bale qur'aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa luqmaan alxakiim mid xikmad la siiyey oo luqmaan la yidhaahdo luqmaan xikmaddii ugu weynayd ee uu ilmihiisa kula dardaarmaya waxaa ka mid ahayd yaa bunaya aqimi asalaa yaa bunay aqimi asalaata wa'mur bilmacruufi wanha cani ilmunkar inahaasi oo dhan markaynu isku darro waxaynu leenahay salaaddu waxaa laysfaray inay noqoto usuusha koowaad ee islaamnimadu ka intilaaqda ama si ay ka bilaabanto inay noqoto waxyaabaha ugu waaweyn ama tiirarka ugu waaweyn ee islaamnimada qofka muslimkii ay ku taagan tahay waxaynu dareemi karnaa hadday qur-aanka makiga ah sidaa ku ahayd markii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu hijrooday ee uu madiine tegey markan hore afraad baa la binaynayay mujtamaca biniyadiisii koowaad usuushiisii koowaad waxay dowladdu islaamkii ku dhismaysay qof qof buu ahaaya afraad dad fara ku tiris oo la tirin karayo oo reer maka ah laakiin salaadaas bay ahayd wixii lagu kobciyey madiina markuu tegayna nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu bilaabay dowlad islaamiya inuu dhiso wixii koowaada uu mujtamaca u qabtay nebigu waxay ahayd inuu dadka u sameeyo meelihii ay ku tukan lahaayeen ee ilaahay kula xidhiidhi lahaayeen markuu madiine tegey cawaalideedii koowaad markuu degay bani cawf masjidu quba ayuu nebigu dhisay 14 casho kadib ayuu madiine u dhaadhacay madiine markii uu tegeyna wuxuu ugu horraysiiyey nebigu sameeyey masjid nabowi intaanu guri dhisanin nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu dego ayuu wuxuu dhisay meeshii ilaahay lagula xidhiidhayay subxaana wa tacaala masaajid waxay culammadu yidhahdaan dowladdii islaamiga koowaad wuxuu nebigu ku bineeyey 3 shay bay yidhaahdaan xidhiidhka basharka iyo alla u dhexeeya in la xoojiyo salaada oo masaajid loo sameeyey 2 mujtamaca dhexdiisa in la isku xidho oo uu walaaleeyey dadkii ansaartii iyo muhaajiriintii si islaamnimadoodu ay u adkaato oo dad aan rixim walaalo ku ahayn inuu nebigu walaalo ka dhigay ثالث الأمر waxay ahayd heshiisyadii uu la galay muslimiinta gudaha joogta iyo gaaladii kale ee aan markaasi mawaaciidii ama cuhuudii ama mawaahiiqdii uu la qortay yuhuud iyo mushrikiin iyo dadkii kale waxaynu arkaynaa markaa usuushii lagu bineeyey dowladda islaamiga ay hadday tahay maka markii la joogay afraadda la dhisayey salaad bay ahayd hadday ahayd markii madiine la tegey wixii lagu bineeyey salaad bay ahayd ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa kale marka la tilmaamayo ummad islaamiya markay dhisanto camalka laga rabaa muxuu yahay waynagan le dowladdu muslim ha noqoto dowlad islaamiya ha la dhiso shareecada lagu dhaqmo shareecada lagu dhaqmaya maxaa u horeeya ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay aladiina in makannaahum aqaamuu الصalaa waxaa lagu bilaabay dowladda haddii laydin makansiiyo aladiina in makannaahum kuwaba ilaahay leeyahay marka aanu makansiino dhulka ee iyagu ay xoog bataan ee ay noqdaan dowlad islaamiya jirta ay noqdaan bulsho muslimoo jira waxa laga raba inay qabtiyo koowaad muxuu yahay aqaamu الصalaa baa ilaahay yidhi idan camalka koowaad ee dowlad islaamiya laga rabo inay qabataa isaga laftiisa waxa weeyaan iqaamatu الصalaa salaada in la oogo salaada markaa oogisteedu haddaynu nidhi cahdigii makiga ahaa salaad baa la isfarayay qur'aankii makiga ambiyadu ka warramayay iyadoo salaad la farayo ka warramaya nebi moxamed markuu madiine tegey salaad buu ka bilaabay iyo masaajideedii in la hagaajiyo salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahay wuxuu inoo tilmaamay dowlad haddii laydin siiyo oo dadka muslimiinta ay dowlad helaan waxa laga rabaa inay dhisaan inay tahay aqaamu الصalaa wasiyadii ugu dambaysay nebi moxamed uu ka tago waxay ahayd asalaaha asalaa taasi waxa ay tilmaamaysaa sida dad badan salaadu ugu muuqato inaanay ahayn waxaa laga yaabaa inaynu dadkani ka fakerayaan
acmaal siyaasiya loo baahan yahay, acmaal iqtisaadiya loo baahan yahay, acmaal kana loo baahan waxaba waxa ka horaysa acmaal salaada loo baahan yahay. haddaad siyaasi dhaboo muslima tahay waa haddaad salaada si fiican dadka u barto, waayo salaadu waa iimaankii camaliga ahaa, shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu llah waa laybal caqadiya, laakiin iimaanku wuxuu xaqiiqo noqdaa bisalaa. walidalik baynu arki karnaa qur'aanka ama nusuus qur'aaniya ama nusuus xadiida oo muuminka iyo gaalka ku kala soocaysa salaad. amase waxaynu arkaynaa nusuusta qur'aanka oo markaa mu'minka dhabtaa laga warramayo qadaayaadkiisa salaadna lagu bilaabayo, salaadna lagu gebagabaynayo. qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun. ilahay wuxuu ku gebagabaynaya waladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiduun. mu'minkii dhabta ahaa waxaa lagu sifeeyey ee acmaashiisa bilow iyo gadaal iyo horeba laga dhigay, dhan walba camalkiisa waxaa lagu gebagabeeyey waa kuwo salaadooda ku khushuucaya baa lagu tilmaamay, ama waa kuwo salaadooda ilaalinaya. bale waxaynu tilmaamaynaa dadka ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadun rasuulullah afka kaga wada dhawaaqay, waxyaabaha lagu kala soocaa inay tahay salaad. sida daraaddeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala munaafiqiinta markii la astaynayey wixii lagu asteeyey waxay ahayd salaad xumo. munaafiqiin ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu asteeyey ee tilmaamay waxaa lagu tilmaamay ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allah wa huwa khaadicuhum waida qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ila qaliila, ama walaa yaatuuna asalaata ila wahum kusaala fii suurati tawba aw suurati nisa. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu rabay in mu'minka dhabta ah laga dhex tilmaamo ka munaafaqa ah ee nifaaqa ku sifoobay ee hadalkan uu afka ka leeyaa shahaadii aanu dhab ahayn, astaanta rasmiga ee lagu dhejiyey waxay noqotay inay yihiin kuwo salaadooda u kacaya iyagoo kusaala ah, iyagoo caajisa, iyagoo liita, iyagoo aan dan badan ka lahayn. taa macnaheedu waxa weeyaan markii dadka la kala tilmaamaya waxaa lagu kala tilmaamay nawciyadda salaada ay tukanayaan iyo salaada ay tukanayaan inta ay leegtahay ama waxa ay tahay. sidaa awgeed waxaynu leenahay qur-aanku wuxuu in badan inoo tilmaamayaa xataa muslimiinta dhabta ee la ammaanayo ilaahay wuxuu ku ammaanayaa kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun, inay salaadii caadiga ahayd tu ka dheeraada wadeen ayaa waxaa laynoogu tilmaamayaa inay tahay sifaadka dadka sare abraarta ah. min alabraar, dadka hagaagsan ee muslimiinta qima taagan inay yihiin kuwa ka salaad fiican leh kuwa kale. sidaa awgeed buu nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ku tilmaamaya in salaada laga yeelay waxyaabaha ishiisu ay ku doogsato ama ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado.